waxaan isku nimid waxaan ka hadlaynaa waa arinta xanuunkan adduunka ku faafay ee viruska ilaahay nooma keeno laakiin adduunka dadkii ku noolaa meel kasta jooga adduunka dacalkiisa warwar buu ku abuuray iyo cabsi taa caalamkan kala mid ah cid waliba itaalkeed iyo taladeed iyo ismaqalkeed ay kaga diyaar garowday inaguna taa adduunkan kala mid ah ilaahay mahadi maanta dalkeena wax uduruhu ka jira ma jiro saaka shalay ayaa tijaabada dadka wixii la baaray tiradooda ardii sheegi doonaa muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airportka aynu tagnay ayna goobaha dalka laga soo galay waaweyn dalkeena meelo badan baa laga soo galaa xuduud weyn baynu leedahay waddo waliba way furantay laakiin meelaha socodku u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumadda loo filaayo ciddaas inay cudurkaa qabto oo adduunka o dhan u istaandara markaa maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddadaas soo maray waddooyinka ah iyo tiradooda taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale ka soo galay ee lug inagu soo gala ilaahay manu ka magan gelina inuu naga qabto laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayoonahay gudaheena anaga waxba ka dhicin ilaa imika meel laba rug caafimaadba waxaanu xalay ku soo hooyanay sida xoolaha la raacay xalay maxaa lagu soo hooyey waaguna ku bariyey shalay maqribku wuxuu noo dhacay tukaraq waxaa la baaray oo soo maray 109 qof dhammaan way caafimaad qabeen wax laga shaqeeyo lama arag yube waxaa la baaray 10 qof oo soo maray controlkii ay yaaleen baaristu way caafimaad qabeen dhahar 9 qof baa soo maray way caafimaad qabeen 9 qof wajaale 540 qof baa ka soo galay dhammaantood caafimaad qabeen wax lagu shaqeeyo lagama arag berbera waxaa ka soo galay 19 qof oo u badan kuruuga maraakiibta baajar kama soo gelin waa caafimaad qabeen markii la baaray lowi caddo 138 qof oo baasan jara wax laga shakiyo laguma arag cigaal airport waxaa ka soo galay 262 qof wax laga shakiyo laguma arag tiradaas shalay galabtii waago gobolku noogu dhacay ilaa imikana wixii soo maray xadka jooga tiradoodu waa la soo tabinayaa wali wax shaki u kaysamahayno taxadirka waxaynu soo oranahay inuu isugu xidhno warkaa ilaa goobta ilaa madaxtooyada ilaa wasaaradda dalankii inuu soo dhawaaday marka cadsabiin hore lagu sheegay dalkeenu isu furan yahay cabsiyo mudan qabnaa waan iska wada eegaynaa arrinta marka ilaahay mahadi waa nabad qabnaa waxaan soo qabnaa warwar adduunka oo dhan qabo gobolkeena ka soo dhawaaday doorto waxaan magacaabay 5 wasiir oo hogaaminaya arrinta oo shaqo qaran 5 wasiir oo kala asaagtiin oo hogaaminayso caafimaadku daakhiliga waxbarashada awqaafta iyo warfaafinta wasiirka daakhiligu dalka oo dhan iyo gobolada iyo degmooyinka saaka mas'uula marka haddii loo baahdo talaabo la qaado culayska weyn isagu saarmaya amnigiina isaga haya wasiirka awqaafta dadka inta u badan ee warka gaarsiisa ee culimada ee masaajidada ee waxyeelada isaga isgaarsiinta laga raba inay wasaaradda caafimaadku isagana hawsha u dirto uu furay wasiirka waxbarashada waxa ay in ku dhow 600 oo kun oo arday 500,000 arday dadka u badan buu haya oo ku xiraysan meel xiran ardaydana kaasada qaar bay 80 wada fariistaan boodhina jira tiro badan oo laga yaabo habeenka inay 50 meel wada seexdaan xilkoodii waa saaran waxa kale oo inoo xiraysan maxaabiistii oo meel ku xirsan u baahan in la ilaaliyo inaan cudurku tallaabin waxa la mid ah dadka dhakhaatiirta jira ee buka oo u nugul oo u baahan in la ilaaliyo waxa u baahan ciidamadii oo xiriir ku jira oo u baahan in la ilaaliyo intaaba waxa ka badan
inta qayasha in farashtiisa ku timaada in warso hayn oo u baahan inay isgaaliyaan adduunka oo dhamay wuxuu isku raacay malaha dawo lagu daweeyo ee waa laga hortagaa istabiska leeyahay laga hortago waxa ugu horeeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo ururka la joojiyo caalamka oo dhan isku raacsan inagu meelo badan ururkooda waxa ku jirta nolol maalmeedkeena saylada xoolaha shaqaalahan oo badan iyagu tagaa suuqyada wax lagu iibiyo ee khudaarta iyo cuntada iyo lagu iilow kala adeegtana dadkeena inta u badanay iyadoo shaqo tagaa oo ka maarmi kara hadda waxa loo baahan yahay kamaaran waagi nolosha iyo caafimaadka saynu ilaalinay in la iswaafajiyo waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda Soomaaliland iyo dadka oo dhan wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka cid kale amar kama bixin karto cid kale kama warrami karto anigoo madaxweynaha waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadlay wasaaradda caafimaadka istaag taagno goorana ku xidhno waan aqbalaya cid ha salaamin waan aqbalaya kama hadli kartid waan aqbalaya wasiirku tiisu raacaya jananku tiisu raacaya saxafigu tiisu raacaya ninka baac bisharkii toodu raacaya sidaa waxa ku jirta danteena saar nood galo laga bilaabo imika maalin walba guddigan waxay soo saaraysaa war isugu jira wargelin waano iyo haddii loo baahdo amar iyo haddii loo baahdo in tallaabo sharci laga qaado ciddii fulmay oo ku saabsan caafimaadka duruufo adag bay ku jiraa dadkeena boqolkiiba waxa laga yaabaa 60 magaalooyinka jooga qutul maalmeedka waa shimbiraha kale way kala ahaan diyaar saaqi fataax sayladu tagaa suuqyada kale u tagaa wuxuu la soo noqon soo hida markaas ay dawladda haweeney wada shaqeeya kayd kale wuxuu yaaleen dees mooda xir karo laakiin waan warti qaadana marka haddii alla ilaahdo talaabooyinka saarnoo soo socda iyagu maanta laga bilaabo si bay u hawlgalayaan goboladana oo laga soonayo degmooyinkan waxaanu diyaarinaynaa meel dadka lagu karantiimeeyo 60 magaalo ee waaweynba xadkeena dheer meelaha la tagi doona meelaha la isla ugu dad badan yihiin waxaan u diri doonaa caafimaad diyaarado badan ma lihin diyaaradaha yimaada waxa ugu badan taargisa timaada ee baashir kasta inta ka soo galay xuduud ka badan dadka Itoobiya laga soo qaado 100 ama 200 bay soo qaadaan waa arkaysan wajaala ka xoogay wajaala 500 ee soo galay 200 ka soo degay barku ay urursan yihiin waa la ururin karaa aw la qaban karaa marka waxaanu haynaa xad la wicado ilaa ay ceelaayo oo boosaasagteeda barsaw raaxadka halka ka wareeg boo hada dhaaf ka soo wareeg xadka xeebta dib ugu noqo xadka waxaanu kaga mid galnaa oo talaba qaadanaa in dawladaha aynu jaarka nahay bari iyo galbeedba dhinaca bari waa Puntland dhinaca waa Ethiopia waa Djibouti inuu iyaga la leeyahay xiriir aad iyo aad u midaysan oo colkan iska goodaafaan waa in wasaaradda caafimaadka ee dalka dariskiina ka mid ah oo talaba isku mid ah qaadaan baynu galayna oo la xajin marka maanta waxaan idinku yeeray inuu dadkeena warkaa gaarsiino waxaa jira kolba talaabada la qaadayo laga maarmaanka ee loo baahdo wasaaradda caafimaadka ee guddana bixinaysa haddii loo oranayo halkaa la xidho haddii loo oranayo talaabada hala qaado oo talaabo kasta ilaa wixii waa dhibaatayna dul taalle maxay soo leedahay nabad wax kuma yeeshay dhibta u toogahay in haddii waxaan u soo baxaanba aynaan noqonin dee xaggan u dhaqaaqnay inaan wareerin ay noo jeexnaato talaabooyinka aynu qaadayno 1 2 3 fariinta wargeysa aan ka codsanay waxa weeye in loo hoggaansamo awaamirta dhakhtarka kolka hore waxa la yareeyo meelaha lagu soo buuqayo aroosiyaa jira qaylaad baa jira xafladaha jira intii laga marin karo waa la yareeyo ilaa nafteena waxaan ka hadlaynaa taa marka la yeelo waxa gayaalaha ku xiga ee la sheegay in wada ognahay faraxal leh imika aniga dhakhtarka waxay siinayaan maalmahan ay iga wareeriyeen
waxaan ahay dadka markay ama hadlayaan ama meela joogaan farahooda meel dhaqdhaqaaq badan san yidhaahda hayso inta maa taan baa laygu yidhi waa tay ugu dhib badan meen xaadaba gacmaha idin kale waa la siinaya amarka anigu amray la dhaq wajigaa ha u dhaweyna gacmaha idina wada qabtaan amarka dhammaantiin waynu wada qabnaa amarka ilaa caafimaadkaa ku xidhan marka dadka gacmaha dhaqdhaqaaq badan anoo kale dee waa marag boolada xusnaata hays dhaqaajin muraadii hadda ka baxaysa xagga ka qabo marka amarka caynkaasoo shakhsiyan lagu soo socday qoysba intaa waxaan dhaafay laba qolo ayaan fariintaa u sii marayaan maanta u soo baxay mid waa culimadu warka ay dirayaan waa in mudooba dad baa waxay yidhaahdaan cudurkan kuma dhaca muslimka gaaladu ma ku dhaca oo waa wax gaaladu inoo kaleeto waa wax hadar bini aadmigu waa isku mid cudurku wada qaada gaal iyo saabna uu ku dhacay sina waa looga wada taxadiray oo waa laga wada hortegey markaa qofna ayaa lagu aaminsan in cudurkan muslim kuma dhacay waa ciqaabe cudurkan dadka wada gaadhaaya si ha lagu wada taxadiro dadka taxadirka ha loo wada sheego oo ha la wada maro culimadu roolka ugu weyn ka qaadato oo caqiide ahaan nadaafadda iyo islaalinta waqaayad inay waqaayadu ka wanaagsan kadootaga hawl sheegaan waa la hayaa xadiis dhaba oo markii ay asxaabtiiba joogtay inuu ka dhacay shaam daacuun oo la yidhi cumar bin khadaab ha gelina ka soo noqo oo joog taas waa mid qolna waa saxaafadda maanta dalku ciidanka quru haysto ee cudurkaa wax ka qaban karaa ee dagaalkaa geli karaa waa saxaafadda iyo isgaarsiintu iyo muxuu ahaa social media dhammaantiin waxaanu ka midaysannahay waa naftaadii nin walba waxay dhakhtarradu inugu amraan sideeda u gudbiya iyo inaan gelinin maaragtay war aduu aad meel kale ka maqashay iyo jaridaad meel kale ka soo akhriday iyo dhakhtar aad la sheegtay wuxuu ku yidhi iyo waa inuu waxaynu mid ahaada wixii tale la hayo guddida ha loo keeno wixii feedback la hayo ee war maraa talabaad taanaan ku darro guddida ha lagu soo shubo saanu talada hayno ilaahay idinkii ilaahay wuu inaga badbaadin waxba inagu soo bixi maayaan laakiin iminka dalka waxaynu gelinaynaa digtooni boqolkiiba boqola digtooni boqolkiiba boqola kolba tallaabadii maanta loo baahdana inaanu qaadno caalamka xiriir xoog laanu samayno hadday dowladaha tahay hadday jimciyadda qurba ka dhexaysa huu tahay iyo cid loo dhustaana waxay kala tarayaan waanu u diray in arrintaa aanu iska kaashanno nagana caawiya intaa waxaa ka weyn ducada eebbahay ilaahay baynu baryaynaa innagu ducada ilaahay baynu baryaynaa inuu ilaahay naga sabta saaro masiibadaha adduunka ka dhacda maanta in hortahay intaa waxaa ka dheer wuxuu keeni doonaa hoosu dhac dhaqaale oo innagana inuu keeni doonaa adduunka kala xidhan baa dhacaya diyaaradii waa taa la joojinaayo baduhu ku yaraanaya isocodkaa yaraanaya labadii qof ee jaarka ahaa baa yaraanaya labadii qof ee saaxiibada ahaa wax cuni jiray ee isku dhawaanaya baa kala durkaaya taa lafteeda qof wala waxaad sadee dhaqaalayso ummad waxaynu maalinta ahay laba dabka saarta weliba ragga mid qayra saaxiibadii la boodbooda mid walba $10 maanta $20 dab ku saara markaa kuwa haystoo taajira iyo ku faqiirabana aynu waxayna kaydsan aynu ku darro inaynu iskaalmayno mar haddii la kala xidhmay inteennii fuqarada ahayd dee way sii go'doomaysa markaa ka taajirka ah iyo koo waxaya iyo hanti qaran wixii la hayana ha la wadaago oo ha la